markay dadka igu dhahayeen waxaad isa siisay qofka tagi karo taas shaki ayaan ka muujin jiray waana ka gilgilan jiray laakiin hadda ayaan dareemayaa xanuunkaas ma jira ruux dhameystiran oo ku nool dunidan waana sababta aad mar walba ii dhaawacdo laakiin mid ogow waad iga badbaadisay dhaawacaas waxaana taasi ugu dulqaatay oo ay ku dhacday waa jaceylka dhabta ah ee aan adigu ku qaaday Soomaalida waxay tiraahdaa qofkii imaanshahaada og ayaa ogaada bixitaankaaga nabahan aniga been isu dareensiiyay inaad jaceyl ii ogeed laakiin tagistaada ayaa ii run sheegtay hal magac ayaan ka xasuusanayaa dumar oo idil kaas oo ah magacaaga hal qalbi ayaan isu dhiibay oo kaaga ah laakiin magacaas iyo qalbigaas waxay ugu noqdeen laba shakhsi oo kala socda markaan ku dooxay uurkayga oo aad aragtay dhiigayga inaad iga sasto waa calaamad muujinaysa go'aan ku qarsoona oo ahaa bal tijaabin ruuxan waxaan ku siiyay furaha nolosheeda waadna i cidlaysay kaliya maan ku siinin furahaas ee waxaan kaloo ku siiyay oo aad wadataa nafteyda oo dhan haddii aan ogaan lahaa dhaawacan aad ibadi doonto waxaan isaga baaqsan lahaa jacayl oo dhan si tartiib ah oo ka fiirsan ayaan ku siiyay nolosheeda adigana si fudud oo degdeg ah ayaad uga baxday adaadaga dhuuxa dhamaysta adduunka haweenkaba dhaaftay ee uu qurxo